habeen wanaagsan kuna soo dhawaada telefishinka BBC Soomaali qodobada wararkeena caawa ugu waaweyn waxa kamid ah iskuulo dawladeed ma jiraan lacagta dugsiyadana iskama bixin karaan laakiin tiro yar oo kamid ah barakacayaasha ayaa garab ka helaya ardayda jaamacadaha Muqdisho dhigta warbixin ayaynu idinkaga haynaa buurta Elgon ee Uganda waa goob aad u qurux badan isla markaana halis badan dawladdu waxay doonaysaa in ay dadka ka rarto deegaankaasi si ay u hubiso ammaankooda markaasina waa ka hele abwani nooca gaariya wata ku istaadi laakiin nooca lagu weynayo waay ninka heli arrimaha taagan iyo saamaynta ay ku leedahay noloshooda waxa socda ayay si maad ah u sheegaan Somali React waa dhalinyaro majaajilistayaal ah oo bar YouTube-ka ku leh Soomaaliya haddii aynu ku bilaabano waxa jira caqabado badan oo ay wajahayaan barakacayaasha gudaha dalka tiro dadka guryahooda ka qaxay waxa ay gaaraysaa 2.1 milyan oo qof oo dumar iyo carruur u badan sida bishii January ay sheegtay hay'adda UNHCR in ka badan 99,000 oo qof waa kuwa ka soo noqday xeryaha qaxootiga dalalka dariska la ah Soomaaliya hay'adda ayaa bishii December sidaasi shaacisay waxbarashada ayaana ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn dalkana kama jiraan iskuulo dawlo waxaana bedelay kuwa gaar loo leeyahay oo lacag ah haddaba qaar ka mid ah ardayda jaamacadaha Muqdisho oo isu tagay ayaa bilaabay in ay si bilaash ah wax ku baraan carruurta barakacayaasha Cali Nuur Salaad ayaa warbixintan inoo soo diray waa tiro yar oo ka mid ah carruurta barakacayaasha ah oo aad u nasiib badan wax qorista iyo akhrinta ayaa halkan lagu baraa taas oo ugu yaraan carruurtan u suurta gelinaysa in ay wax bartaan hadda ilmahaneetii hadda oo shanta meesha dhiganayaan dhaqaalo waay laba ka mid ah ayaa hadda ani iskuulaadkaneetii sanadkan kuwa dhameeyay ah oo wax maalayaan kuwa kalena haddana oo hadda inta ay ka baxaan oo aan sii rajayno in la igu caawiyo ma fiican inaan ka helo aan rajaynayona lacagaan u waayay ma ahan waxbarasho dhammaystiran waxaana fulinaya aayadoon waa urur aysan cidi taageerin oo ay ku midaysan yihiin qaar ka mid ah ardayda jaamacadaha Muqdisho wax ka barta oo isugu yimid in ay caawiyaan carruurtan baahida u qaba waxbarashada hadduu qofka guri oo ku nool yahay haysto ama oo kaam ku nooleen qofkaasi wuu awoodaa inuu maaragtay goobaha waxbarashada siyaabo nooc walba ama ha u maro ama qaabku raba ha u maro inuu cunugiisa waxbarashadiisa u geelahay u geeyo laakiin dadka kaam ku nool waxa way dad qontayoonkoodii raasanaya ku dhawaad 600 oo carruur ah oo ka kala yimid ilaa 6 xero barakac oo ku yaala duleedyada Muqdisho ayaa fursadan helay waxa ayna la mid tahay dhibic biyo ah oo badda ku dhacday maadaama 100,000 ay yihiin barakacayaasha ku nool agagaarka Muqdisho halkan waa xerada barakacayaasha badbaado kumanaan qoys oo deegaanadooda uga soo barakacay abaaraha iyo dagaalada ka jira awgood ayaa halkan ku sugan waalidiintu waxay ku mashquulsan yihiin helitaanka quutulyoomka carruurtooda balse aayaha carruurtan ee waxbarasho waxa uu u madlan yahay dhalinyaradan isxilqaamay oo duruus aan nidaamsanayn halkan ku siinaya qaar ka mid ah carruurta kaamkan ku jira Muqdisho kama jiraan iskuulo ay dawladdu maamusho waxaana ku yaala dugsiyo gaar loo leeyahay oo lacag laga qaado ardayda waxa ayna qasabtay in dadka ladan oo kaliya ay carruurtooda u diraan iskuulada wakaalkii laga rabay dawladda inay samayso waxbarasho lacag la'aan ah min dugsi hoose sare ilaa jaamacadna samayso haddii ay dhici weysay ninbaa wuxuu yidhi haddii fiqi la waayo ma loo fadhinaa haddii kaalinkii dawladdu uu soo daahay waxay lagama maarmaan noqotay in dadku intay is abaabulaan sameeyaan iskuulaad gaar loo leeyahay waa fursad dhif iyo naadir ah in carruurta barakacayaasha ah ay helaan waxbarashada asaasiga ah balse su'aashu waxa ay ka taagan tahay sida uu ku sii socon karo mashruucan uuna ku gaari karo tiro ka badan tirada iminka ka faa'iidaysanaysa Cali Nuur Salaad BBC
muqdisho. faahfaahin dheeraada ku saabsan warbixintan iyo kuwo kaleba waxaad ka heli kartaa bogga BBC Somali adigoo mobilkaaga ka gelaya. bal markana aynu eegno qodobo kale oo ku jira wararka maanta. magaalada Tripoli ee Liibiya ugu yaraan 12 qof ayaa ku dhimatay qarax uu fuliyay qof isu soo miidaamiyay oo beegsaday xafiisyada guddiga doorashooyinka. mintidiinta uu ka mid ahaa qofka isqarxiyay ayaa markii hore rasaas huwiyay goobta inta aanu qaraxu dhicin. xubin ka mid ah ciidanka ammaanka iyo guddiga doorashooyinka ayaa la xaqiijiyay in ay ka mid yihiin dadka goobtaasi wax ku noqday. Ethiopia ayaa heshiis la gashay dowladda Djibouti oo ay saami ku yeelanayso dekedeeda. 95% waddanka waxa uu dhoofiyo iyo waxa uu soo dego ayaa halkaasi mara. inta uu saamiga la egyahay ayaan wali cadayn. Djibouti ayaa sidoo kale taa beddelkeeda saamiye ka iibsanaysa shirkadaha Ethiopia ugu waaweyn. Morocco ayaa sheegtay in ay xiriirka diblomaasi u jaraysa Iran oo ay ku eedeynayso inay taageerto dhaqdhaqaaqa xorriyadoonka galbeedka Saxaraha ee Polisario. wasiirka arrimaha dibadda Morocco Nasir Bourito ayaa sheegay in Iran iyo isbahaysigeeda Xisbullah ee Lubnaan ay isku dayayaan ayna hubaynayaan dagaalyahanada Polisario. wakaaladda wararka AFP-na waxay sheegtay in Iran ay beenisay taas. dhakhtarkii hore ee Donald Trump ayaa sheegay warqaddii uu saxiixay xilligii ololaha doorashada 2015 ee xaqiijinaysay in uu caafimaadkiisu sarreeyo ay ahayd mid uu isaga dhabtii qortay. waa madaxweyne Trump. Dr. Harold Bernstein ayaa sidoo kale sheegay in ilaalada Mr. Trump ay xoog ku galeen xafiisyadiisa 2017 iyagoo meesha ka saaray diiwaankiisa caafimaad. aqalka cad weli kama hadal eedaasi. boqolaal dad ah ayaa lagu qasbay in ay guryahooda ka guuraan bariga Uganda kadib markii buur ku dulduntay dhowr tuulo oo ka hooseysa buurta Elgon. waa dhacdadii ugu dambeysay ee ka dhacda dhul ay dawladdu sheegtay in aanay ku habboonayn deegaan. dadka ku dhaqan dhulkaasi ayaa arrinkaasi ka soo horjeestay. maxamed xaraare ayaa inoo haya. buurta Elgon waa buur ay ku tiirsan yihiin dadka deegaanka Begusu ee Uganda. waxay ugu yeeraan buurtii hooyada. hase yeeshee degaladani waxay marar badan sababeen geeri. sanadkii 2010 buurtani waxay ku dulduntay tuulo ka hoosaysay oo ay ku dhinteen dad 300 ka badan. ardadayda 9 ka mid ah ayaa ku dhimatay. buurta Elgon si joogto ah ayay u duntaa inta badan xilliyada uu roobku da'o dhoobaduna jilicdo. waase waxa ay beeralaydu ugu xilanayaan. xukuumaddu waxa ay iminka baaraysaa dilaac galay dhul 40 kiiloomitir ah oo isu mara 5 degmo. waxay doonayaan in dadku u guuraan meelo ammaan ah. waxaa jirto caqabado iyo cadaadis dhuleed. waxay taasi sababtay in dadku u guuraan meelo xasaasi ah oo aan ku habboonayn deegaan. waxaad arkaysaa dad degaya buuraha dhaadheer dushooda. waxaan isku dayaynaa inaan ku qancinno inay ka guuraan buuraha. Elizabeth, halkan waa isha keliya ay nolosha ku maarayso ka sokow inay degan tahay. halkani waa dhulkeena. meel kale ma haysano. waa halkii ay carruurtaydu ku dhalatay. waa dhul aan aniga iyo ninkayga ka helno kharashaadka iskuulka carruurteena. 12 carruur ah ayaan korinaa. iyadoo maalmihii la soo dhaafay dhoobadu hoobanaysay noloshu si caadi ah ayay u socotaa. gurigan waxaa laga dhisay meel dhowr mitir keliya u jirta halkii ay 2010 masiibadu ka dhacday. dhulkan carrasanka ah ee qurxoon waa meesha keliya ay dadka halkan deggan yaqaanaan. waa xudunta noloshooda walow marar badan ay xanuun kala kulmeen. markana wararka cayaaraha ugu waaweyn. Real Madrid ayaa xaqiijisatay markii saddexaad ee isku xigta finaalka horyaalka Yurub kadib markii barbaro 2-2 ay la gashay Bayern Munich. kooxda soo baxda Liverpool ama Roma oo caawa ku ciyaaraya caasimadda Talyaaniga ayay is arki doonaan. Liverpool ayaa 5-2 kaga badisay lugtii hore Roma. 3,000 oo booliis ah ayaa la soo dhigay magaalada Roma kadib markii ciyaartii toddobaadkii hore ay rabshado ka dhaceen. taageerayaasha Liverpool waxaa looga digay iyo nolona sheegay in ay qariyaan calaamadaha iyo shaararka magacyadooda ku qoran. kubadda cagta ayaynu weli ku jirnaa.
maamulihii hore ee Manchester City Roberto Mancini ayaa lala yeeshay wadahadalla uu ku noqonayo maamulaha cusub ee kooxda qaranka Talyaaniga. 53 jirkan ayaa bedelaya Giampiero Ventura oo bishii November la eriyay kadib markii Talyaaniga ka hareen koobka adduunka. Mancini ayaa maamulo u ahaa Manchester City markii ay qaadaysay koobkii horyaalka Ingiriiska ee 2012. Hadda waxa uu madax u yahay kooxda Ruushka ee St. Petersburg. madaxweynaha FIFA Infantino ayaa soo jeediyay in la sameeyo ciyaaraha kubadda yar ee adduunka. 8 koox oo caalami ah ayaa ka qayb galaya waxaana la dheelayaa 2 sano mar. tartanka loo yaqaano 8 u dambaysa waxa uu noqon karaa uguna noqonaya kan ugu sarreeya tartamada la soo jeediyay. koox dhalinyaro ah oo Soomaali ah oo la baxday Somali React ayaa bar ay YouTube-ka ku leeyihiin ku baahiya sheekooyin madadaalo ah oo badi la xiriira arrimaha saameeya Soomaalida. hab majaajilo ah ayay arrimahooda iyo fariimahooda ku gudbiyaan. meelo badan oo magaalada Nairobi ahna aad ayaa looga yaqaan. haddaba sidee loo arkaa fariimaha ay gudbiyaan? Muna Mustafa oo dhalinyaradaasi ka mid ah ayaa nooga warrantay. riwaayadaha aan sameyno horta waxa waaye waa kaftanaa qosol majaajilo jaceylka oo kale qayb ayuu ka mid yahay waxyaalo badan oo sidaas oo kale riwaayadooyin badan aan sameynaa dadkana daawado run ahaantii matalan dhalinyaro way iskugu jiraan waalidiin way iskugu jiraan sababtoo ah waalidka laftirkiisa micnaha maanta Soomaalideena waxaan naqaanaa dhalinyarada kaliya wax daawato laakiin waalidka laftirkood waxay u baahan yihiin wax isku mashquuliyaan saaxiib horta inta Arsenal taageerin kor ma arkino waa cadaa wallahi laakiin had Arsenal marka aan fans u noqday murug daraadeeda saan uga ka madow muruga ay madoweyse wallahi billahi taala Arsenal winga ma ho ilaahu Arsenal winga Mandela ku gee runtii waxaan ugu dhiirigeliyay waxa jirta markii iskuul aad dhiganaysid ama aad maxaa lahaayay meelkii maad shaqo aad u daalan bil aadanku waxay isku maaweeliyaan ama waxay micnaha ay isku mashquuliyaan ay badanaa jira soo waxaan ugu dhaliyay inaan sameeyno riwaayadahan gaagaaban wax anaga ahaan Soomaalihan ugu saabsan sida bil aadanka kale noola daawadaan runtii waxa jira fikrada la weedaarsado micnaha fikrada waan wadaagnaa dhamaanteena intaan meel ku kulanno shakhsi wuxuu keenay waxa jirto oo intuu noo sheego aan haaf ka qaadano shakhsi kale wuxuu keenay inaan haaf ka qaadano wixii ideas-ka marka waan wadaagnaa oo isku darnaa saas daraadeed marka wuxuu noo noqonaa wax fiican oo muuqdo oo la daawan karo caqabadaha soo wajaha waxa kamid ah sida aniga camal gabaraan ahay waalidkay inaysan ii ogoleena jirta inaan micnaha YouTube iyo meelahaas ka muuqdo aan li weydiiyo maxaa ku dooratay YouTube in laga arko maxaa ku dooratay social media inaad dhex yaacdid waalidiin badan oo dadka aan hooyada ama aabaha u ogoleena jirta marka ani alxamdulillah aan leeyahay sababtoo ah aniga gabar waan ahay laakiin qof walba hobbigiisa ayuu meel walba ku gaari karaa qofka marka haddaad hobbi leedahay oo kale cid wax ka joojin karta ma laha markaasina waa ka hele abwaani nooca gaariyaha wata ku istaadi laakiin noocaada nooc lugeynayo waaye ma ka heli mustaqbalka waxaan hiigsanaynaa ilaa iyo heer inaan gaarno runtii riwaayada iyo waxaas bis inaan ku koobnaano ma rabno micnaha hadda movie waxaan sameynaa 2 minutes 3 minutes waxyaalo short waxaan rajaynaynaa inaan micnaha sameeyno riwaayado micnaha oo ilaa iyo sida dadka ee riwaayadaha ay sameeyaan Soomaalida oo kale ama madowga cadaanka riwaayadaha ay sameeyaan sida 3 hours soconayo kale waa rajaynaynaa mid saas oo kale inaan sameeyno ugu dambeyntiina waa kubad lagu ciyaarayo garoonka biyaha oo garoon ay biyo fadhiyaan waad ku ciyaari kartaa sida carruurtan u dhalatay Japan haddii aadan baqayn waxay joogaan magaalo la yiraahdo Nara ee galbeedka Japan waxayna kubadda ku ciyaarayaan dhulka beeraha bariiska ee biyaha leh ujeedka waa in carruurta lagu dhiirigeliyo in ay banaanka ku ciyaaraan oo aysan guryaha ku jirin wararkan iyo kuwii ugu dambeeyaba waxaad kala socon kartaan oo aad ka helaysaan boggeena bbcsomali.com muuqaallo ku saabsan iyo sawirradeena waxaad ka helaysaan barteena BBC Somali Facebook ha hilmaamin waxaad sidoo kale aniga iyo asxaabtaba nagula soo xiriiri kartaan ciwaankeena Twitter @BBC Somali intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeena caawa inta aan kulmi doonno habeen dambe waxaan idinkaga tegaynaa nabad gelyo